horta caddeyn la iska rabaa inaan gacan ku qaado way jirta laakiin Hargeysa taariikhdeedii xilligeedii wax walba caddeynana waan hayaa taas maalinta Hargeysa gacan waxaan kugu qaadanaa nin raga wuxuu naagtiisa gacan ugu qaado wadi ogtahay adna waa soo labadeen aad isku gulay haddii ka marsan moodo social media keenaya arkaas ma ka hadlaya laakiin boorama inaan ku keenay on gacan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونسلام يا دمان أصحاب تقاليا كحير أم حمسة في الشيار سود وهذا والله قاليا سليا من في عين رمضان مبارك ما أنت واحد في الغين دونا الوقف أول عليه أنا تغني رسم رئيس يعني كذا هو كلا تجي معنا ورن كراه عيان كهل دونا إن شاء الله بروح صوت بيننا دقيسته قبل ولا شيء ما أنت بتكلم لسه لا صفر استمر واحد راسه مالو بين هاد مالي أبو سؤال دقيسنا اوكي waxay tirwa maalintii beenta adduunka cid walba aqliyo cid kasta maskaxda leh way garan kartaa horta koow yaa prank lagu sameeyaa qof aad wada joogtiin qof xiriir naga dhaxeeyo qof aan wada joogin oo magacaaga soo hadal qaadin meel xataa aan lagu arkin magacaaga soo hadal qaad ku dhigay inaad daba socotid oo laga qurux badan yahay fikir baad keensato istirninkan bawlad jeceliye والله حست هذا أصحاب الله أركن كان وحليه هاي كان وحليه يعني لما ما دلنا معني مركرنا تداي ما دلنا مع حد كير سنين صوفت حد محيك تاي ميسك وقرع يولي المهي ما مركر بداي الماء يعني والماء يصير أنا الماء ما دلنا وح الماء غفتين رش ما بشراني محيت هذا صوفت وميسك وقرع يولي المهي كاقنا من تكل عود كان رسم رسم حيتنا أنا ومسكلي عود كان codkan asaguna wuxuu nooga dhigay inay rasmi raas leedahay even hadday rasmi raas codkan leedahay macnaha sababta uu noo dhageysiinay maxay tahay nin naagis qabay ama kala tegay ama arrin ka dhaxayso ama is shukaansada weligood baa la ogyahay inay luuq isaga calaane sababta anaga nolol soo wadaagay maxay tahay waa arrin yaab leh hashumaanka ka tee maasaar miyay liqday farxaan wuxuu nooga dhigay macnaha arrin ugu cusub inta uu sheegtay been quman ma xataa waxa tahay gabadha iyadoon la furin meel lagu furay ayna jirin intay ummadda soo fariistay Soomaali Maxamed tiri waa la ifuray diinta kuma jirto taas waxaan u leenahay maaha dhaqan waxay Soomaali dhaqan u leedahay maaha weelan gabadha la soo furay oo igu soo aflagaadeen igu soo caayeen waxa cadeyntu ila dhageysta يا كفر يسحق له كفر أي شيء أنت أمضي أنت أصحابي أنت برنامج كان لسعت فيه بلا سعتي لكن أنت لسعن أيام محربنا فاسي عد كان هرت أنا وحكم فهميه لكن تسكو واحد يسكر عن عد كان يها عد بيان وقف يريش الرسم رئيس كدي معنا كدي من وقف عد كحيان سكدينا مركا هدي أي ترى حتى كوما أنا فرن إما هذا فرن وقت على هم يعني حتى ولي رجعان كعلاه ده أنا جلست وداكتي وأنا كفر حد ماشي من يلان ما فهمت مركا أنا واحد سكره نصب دي يعني كلنا فرحان وافضل تيستيشي شيطان كسكانر حتى قفت عشاء حتى ودوين كرا الله مرأي شيء بان لايه مرة قالي إن شاء الله بالحد نروح نقول قلنا إذا رسم رئيس بحكي جواب تعرين كاس أوكي waxaa rabaa inaan ka hadlo wax yar arinta uu dhahay waxa tahay gabadhii ayadoon la furin intay Soomaali Maxamed soo horfarsatay tiri waa la ifuray warkiis waa la maqasheen xaqiisana waa kasoo dhageysteen kulay wuxuu yiri waxa tahay gabadhii ayadoon la furin oo la qabo tiri waa la ifuray okay horta arrinka oo aan leedahay anigu kuma furin haddaad ani ifurin markaan ku dhahaa waad furtay oo inta soo fariistay dadka ay wada yaabanayeen isku wada haystay social media isla wada qaylinayay ayaa inta soo farsato ayaa waxa dhiileed ani rasmi ma furin ee been sheegaysa waxa ka soo wareegatay 6 bilood
فهمتي حلي يعني هذا أكل تجني مع العدد هذا أنسكوك صلاة بناني هذه إنما دحتاله برادر ما فهمتي هذا كلا معانا هذه أو فرنين ما فرن عاد صود تستفيلن كل تاسوا عاد تقوتاله أو عاد قبل كل جلس أنا وادي فرتي وأنا فرتي نحن فرنا مديلين ويفرق وحنا يجي بينو شيء ممكن سكول السومالي ما حد بينو في كرمه هذا إلهي بين أشياء ما فهمتي وأيضا رمضان لو جتشرو بين أسوق بقشتي وفيوس صوتاجن ما فهمتي أنا هذا كوتش بابا يا من كان عن علينا مر هوران كاسو هذا الله صاحب ما فهمتي هاد سيد نفرق إنا وهذا الشيء أيا وناكسن لكن سيد ضمر كنا سكاجي هذا الشيء ولا جف عين هاي هذا يقبته وأنا أحرك هو حيرنا هاي ده عيد لوان كاسو تاج ما فهمتي ده عيد لوان يقصد بهذا الهيد ويسورة سن الهيد أذن ده كنا لوا صادر سن الهيد لكن ناقة فرتاها because waxaan iskugu daba imaano meesha ma yaalin fahant inta codod soo raasatay istiraahday waxa la jiray كيما هرا كو غلي كان بل انت قف حبد ير انت وعدتid rasmi ka yaradhig oo ku dhe eechil markaan ku dhaw manaa ku furin ma ku furin ideh saaxiibtana ka soo jilacsan mihi alxamdulillah waa iska adkaan fahantay waadna furtay ee beenta aad muslimka ramadaanka dhaxdiisa alla wareeganayso iska jooji saaxiib waad war ku galayo haddii aad u soo dhex fariisato qolka 2 mitir ku jirtid ina maxal dhig jiray aad been meelaha ka soo qabsatid aad dadka hor keentid taasi kaama soconaysa ana soo taagan faanta ani rasmi ceebti ku fuush daartidna iska kaytirtirtid oo intaad codod raadsato meesha codod been la soo fariisanaysid saaxiib ani ma dhimanin qof dhinta been laga sheegaa waxba dadka muslimka ku dhihin ani idima cafinayo dadka wax runay ka sheegeen wax been ka mi sheegin saaxiib ma faanta cododkan beenta ana waxba hala wareegin su'aal kastood ani soo weydiis inta halka soo farsatay ayaan rabaa inaan sida runta kaaga jawaabo adaan ilaahay ka baqayna da ilaahay ka baqayso ramadaan hortiisa lama soo farsteen dadka been iyo jaaifo ma fahantay in badan oo niga mid ay soo aflagaadayis waxa ay warka hayn oo ay ku dhex jirno goorjooga waligiin waxaan goorjoogahayn aakhirna u sheegina qof bilaadan ku aflagaadayna oo meel ugu soo fariisanina Soomaali Maxamed ayaa marqaati ka inaan telefoon aan ahaa YouTube ka dadkii aqli leh way gali karaan ana xilliga aan Nairobi maaday ayaan soo fariistoon eri wax walba runta dadka u sheeg ma fahantay una sheeg in qofkaas kala dhamaateen dadka ka walbaharay ka walwalaayo teeda kale waxa ku sheegaya waxay tahay inta soo bari 20 bari aan fiisi tigid aan Hargeysa u joogo ma fahantay idanahayga inta Soomaalina aan Hargeysa aan joogay haday naa ka soo maqanto ani ay furin adii reerkaaga maxay iga daba maan weyseen because waxa isku hubteen inaa gabadhaas furteen inaa xumeysa ogeed waadidina second iga daba imaatid ma fahantay iga ma daba imaan karin naftaada waa cabsanaysa farxaan anigana diyaar uma ahayn inaan ku soo xigto waxa tiraahday wadan bay aflagaadaysay dal bay aflagaadaysay saan bay aflagaadaysay baraadar wadanka iyo dalka ka sheekeynaysid anuma aflagaadeenan Soomaaliland adi iska malihid intaan saaxiib Soomaaliland aniga waa u simanahay warka horta marka kooda ku galo Soomaaliland inay ana rasmi Soomaaliland iska daa gobol ay Soomaali degto ana noloshayda ma caynan fahantay qof dawlad iyo wadan muslimiin degan yihiin caydana ma ihi hada caynayd wadamo oo dadka iska soo hadlo dadka caayo mar hore caaytami lahaa anu adiga ana qalad iga galay macal qabiilkaaga iyo magaalada aad degnad Boorman ana qalad iga galin iska daa Hargeysa anu Boorman qalad ka tirsanayna saaxiib ma fahantay aduna xarta inaad ani Somaliland iyo afkii saartid in ani Somaliland ana caay ani Somaliland ma cayna saaxiibi ka hoosin okay waxa tiraahday isheeg ana adaa isoo raasada tiraahday oo lambarkayga dib badan u maray ma fahantay saaxiib nambarkaaga anu dib badan uma marin horta taasi ka hoosin YouTube ku jira ilaa hadda ma aragtay YouTube ka uu ku jira barashadeen ani adaan isku baranay aan ka sheekeen ha ilaawin ilaa hadda inaan ani YouTube ku waxba ka tirtirin بريبان ما يهلا سو فرسنسد waxba kama tirtin YouTube kala day ku jirtaa fanaaniin hadaan ahay anaga waan is dhiirigelinaa waan is wanaajinaa waan is raadinaa aan shalay markaan fanka soo galay 100 fanaaniin ay soo wacday dhiirigelinaysay intaante oo hal iyo laba iyo 100 qof ka badan
intaan saaxiib anu kaligay kuma soo wicin aniga gabar ku soo wacnay sax gabadha nambarkaaga weydiisay maqal waa noola soo diray waa ku soo wacnay habeenkii kooda ku weynay habeenkii labaad nala soo hadashay oo isku ka sheegay intaan ma filaynin ay ugu tiraad inay rasmi la soo hadlayso eraygaas ma ka dhigaysa rasmi inay la soo hadlayso ma filaynin rasmi maxay ku dheereed waa waxba okay markaan ku soo raadiyay in jacayl kuma sheegin xiriirna kuma sheegin waxaan ku dhahay walaal ma sha Allah fanaan cid macaana tahay hambalyo hore u soco intaan waa ku hambaliyay warkayga ma ku gal saaxiib kadib ninka heesaha ii soo diraya heesta anida Hargeysa aan ku wada qaadnay hal hees anida waliga wada qaadnaba hasha hees ninka ii soo diray ee igu lahaaya ahayd qof noola xameeyay qof muusiga raadsanayna isla qaadno Nairobi way joogaan dadkii ila joogay hebel ma dhahay dadkii ila joogay markaad xiriirka sheeganaysay wax dhan sida u hadlaysay waa la wada ogaa naagta ka cosata ahaa aniga inay ticket ku soo dirto oo igu tiraaday maqaaxida ka shaqeeya waxa ka qaatana guriga aan deganahay ee $50 kiradiis ma ka badno ee ina ku imaada rabo ku jecelahay faante naagtaad ku dhahaysay ayaan ahay intay aroos ka soo shaqeysa Bambaaso $700 ama $800 $800 ama $700 waxay ma xasuusti laakiin lacagta ticketkaaga iyo fiisahaaga naagta wiilka kugu dhigto baasaboorkaaga u soo dirto ku soo saarta aha okay hada aniga ay jecleen oo adigu ana jecel ii qaadin yaa qasab kugu soo kaxeey yaa ku iri qasab iigu imaw adiga kaskaaga ayaad ku timid Nairobi adoo wali iga codsanayo macala nooligaaga oo si walaaltinimo leh ii dhahay walaal nooli ma heystee waan ku jecelahay rasmiyay aan ku imaado horta waxa awaal loo galo binaadan ma ahan binaadan ku weys dhaamaan kan amal wax awaal loo galo ma ahan infant saaxiib ana horta waxa anu qof walba hay igu dhaho rasmi ninkaas lacagaas iyo kana siisay hadaan isla weynaay ama naag xun ahay wixii ani aan sameeyaan qarin lahaa yani waxa u qabtaan qarin lahaa naagaha qaar way ka faanaan ninka inay wax siiyaan ama ninkaas inuu maxal jiro wax u tareen way ka faanaan ani kama faanay waxa uga faanay waxay tahay ninkani asagaan xishooneynin ninka tigidhka fiisaha ku soo diray ayaa joogo adigoo soo guurtay oo boorsiyahaaga wadatid elboorka ka soo degtay elboorka marka lagu duubaayay oo lagu soo dhaweynayay kadib waan isguursanay waan tagnay waxa igu tiraahday YouTube iyo waxan ayada igu qasabtay YouTube-kayga dib u baar qofka ugu horeeyay ee YouTube-keena baraanki ka jira adaa ahayd ma fahantay ee baraanki soo galiyay ani igu dhiirigeliyay ani YouTube waan lahaa adi YouTube ma lahayn ma fahantay ani YouTube waan lahaa riwaayadaha mar soo galin jiray shactirooyin ma ahayn dadka YouTube-ka ku badan ee mar walba dhex taagan qofkii igu dhahay anu ma shaqeeyo rasmi ee YouTube-kan aan leedahay biilanayna ee maanta ugu hor Axmed Kaarshe intuu u yeeray videoga duubay soo galiyay adoo ahaa warkayga ma ku galay marka ay u dhees ani ayada ay u qasabtay YouTube-ka lagu qasbayo waa ka $3,000 inta ka soo qaadid ala aadid isli wax harta ka sameeysan jirtay noloshayda ta kuma dheen guriga waxaan u baahanyahay wixii adi ay isku gartay ka soo harood ii keento ayaana gurigayga kiradiisa ku bixin jiray ma fahan saaxiib cid ku qasabto ilaaha abuurta ma jirto maalin afni igana soo garbax horta YouTube-ka maxkamad maahan saaxiib ee ala soo fiirsanaysa maalin Soomaali noo kala qaada maalin iga soo garbax rasmi hadii wax ka maqan yihiin oo aan rag tahay dad baa ka dhaltay dadkaaga soo darso maxkamad baa leedahay Soomaalida maxkamad baa jirto oo ama diini ah ama kuwan kale maxal jir isteeshimada ama waxa maxkamada la leeyahay lagu kala garbaxo maxkamad iskeen Nairobi hawo mtiri ku jirtaa inta soo goostay ticketkaaga Nairobi imaw ee ani igu la xisaabtan cuniga ka sheekeynaysid ani meeshan geey guriga asheegaysid camera ku xiranne soo duubay noo keen waa hadii aad runta sheegaysid fahant saaxiib waxa tiraaday ani hal mar gacan u qaaday halkaas marna Hargeysa ugu qaaday nin rag wuxuu naagar gacan ugu qaadan uu og yahay yani wax sahlan maahan waxa gacanta igu qaaday adaa laga rabaa adu cuniga u doodaysid hadii adiga aad dhashay u gubanaysid
aniga badada ay dhalay soo ma fahantay maalinta maxkamadda aad soo istaagaysid oo cunuga adi aad dishay aa u doodaysid aniguna dood baa ii furan oo ah markaad idilaysay ma adaa ay dhashay anigu dhaqankayga leeda dhiigayga ma lihid dad baa ay dhalay ma fahanta saaxiib dii dhaqan lagu soo baray codod maa duubteen intaa codod duubtidood musna cododkooda soo duuwatid youtube-ka lamaa soo fiirsateen teeda kale youtube-kaa kaa damaan maa youtube-kii u kacsanaya youtube-kana maalina aad magaca ka bedelaysid maalina aad magacaaga ku qoraysid saaxiib anu magaca youtube ma bedelo youtube-kayga sida adig ugu soo gashay ayaan ahay ma fahantee ogeyn baad baratay inaad arsaaqad ka raadisaan igana soo garbax waxaan ogeyn baad baratay inaad arsaaqad ka raadisaan okay dadka aad ku leedahay israaqada ay ga raadinaysiin waxayna ogeyn ayaad israaqad ku raadisaan waa dadka adi inta youtube-ka usoo farsta ku tiraada Soomaali Maxamed ee noo kala garqaada garta adi dhiibat ma fiis lagaaga raadin adaa fiis raadis saaxiib adaa fiis raadis ah oo meel ku dhacday iyo magacaaga iyo muuqaaga la waayay youtube-kaaga